nin oo waxaan iska ahay buushley oo guri iska deganaan ahay oo buush iskiga jiro kaligeyga iskiga jiro xaaskii xataa iiga tagtay xanuun awgiisa ilaa ka caafimaadis darteeda iiga tagtay anigana daawo hadda aan la ahay hooyaday aabahayna ma ii joogaan marka aniga kaligeyga waa ilaahay aan wax aaga baryaa dadka ummadda walaalahay inay wax ii qabtaan. Yunis Cabdiraxmaan Khaliif xanuun la soo darsay awgii ayuu kaga soo hayaamay dadkiisii iyo deegaankiisa. xanuun awgeeda ayaan shalambood aaga soo baxay magaalada Muqdisho aan imid in oo leegu tabaalaco dadka muslimiinta oo walaalahayga inaan dhex galo oo daawo aan raadsado. Dhibanahan oo aan kula kulannay kaambara kacayaal oo ku yaala deegaanka Garasabaalle ee duleedka caasimadda Muqdisho ayaa sharaxaya xanuunka haya. cudurkayga eerna ayaa igu taalo qaska ayaa idilacsan xaniintan way bararsan tahay mana shaqaysan karo mana soco karo socodkiina way dhibaa kaadadana way iga fafakanaysaa xanuunkayga kaas waa xididkii waa idikaama hadduu banaanka soo baxo xaniyaha waa barareen waa bararsan yihiin xataa ma noqon karo dhabarkan waa i xanuuna kiliyahana waa i xanuunayaan saasaan ahay waxaan cuno xataa waxba igu tari maayaan biyo inaan cabo maahayn badarkaan cuno mandhicirkii xaniyuhu soo gelaa oo zaa'idka tankiisa ma qaadan karo. Fursad fiican ayay u ahayd inuu soo gaaro caasimadda tan Muqdisho balse weli ma uusan tagin goob caafimaad oo duruufta haysata ayaanan u saamixin. Takhtar maya maba tagin takhtarka waxaan ka maqlaa lacag waa leeyahay anigii lacagtii ma hayo ma awoodo nin oo waxaan iska ahay buushley oo guri iska deganaan ahay oo buush iskiga jiro. Dhibana Yunis ayaan weydiinay qarash ahaan waxa ku baxaya qaliinka xanuunka haya ee eernada. qaliinka waxaa leeyahay meel $500 waaye meel $400 waaye anigiina $1 xataa hadda awood ee hataa saaqi qaxwo kaligeeda ayaan cabay waxaan cunayna ma lahan ilaa hadda sidii aan ku joogaa wax hadda waa cunaan dhaa badarka zaa'idka aan qaatana xanuun baa i qabanaya biyaha saacaba iyo cabitaanku barafko laba kun iskiga cunaa wax kala maayo male. Waa aabba beeraley ah waxa uuna ka shaqaynta beeraha ku maareyn jiray nolosha qoyskiisa oo ka kooban 4 caruur iyo hooyadood. marka hore aniga jibaaley beerley iska ahay beeraan iska falahay marka burburka markuu bilowday xanuunkiina uu igu soo kacay jugti meesha iga soo gaartay sidii hadda beerihiin ay ku abaarsadeen aan Muqdisho sidii ku soo galay wax allaha afara ii joogto oo ilaahay ii siiyay afara ii joogto hal hadda asigoo soonkii la ii dhalay waa 7 bilood waay hooyadiisa ayaa hadda wadatay meesha hooyadeeda aabaheeda u wadatay. Waa sidee nolosha dhabta ah ee xilligan dhibanahan iyo qoyskiisuba. والله نولل مادميدكي waa iska cariiri horta alxamdulillah iyo nolol maalmeedkayga waa adag yahay waa iska ma aragtaa iska daciifsanahay nolol maalmeedkayna waa gaaban yahay marka waa alxamdulillah iyo wixii aniga ma saacas muslim uu ii keeno aan iskiga noolahay oo ilaahay iiga soo dhiibo ma wax hadda aniga aan baxoon soo shaqaysan karo oo jeebka aan ku soo shubo karo ma haysto. Dhibana Yunis Cabdiraxmaan waxa uu ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa inay ka caawiyaan dhaqaalaha ku baxaya caafimaadkiisa. bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa xanuunkan oo i hayo 8 sano muddo 9 bishan sanadkan iyo 9aad hadda igu soo socdo waxaan ka codsanayaa inay igu caawiyaan cudurkan ayaan ka codsanaa ay sidii caafimaad aan ku helo ayagana iskugu darsamo bulshada aan raaco adduunkana walaal lagu yahay intii adduunka intii la nool yahay walaal lagu yahay maahan haddii mar la dhintana walaal la isku ahaba bas weeba nin walba camalkiisa haysta. intiina awooda inay caawiyaan ama la xiriiraan Dhibana Yunis waxaad kala xiriiri kartaan telefoon numberka waafkiisa ka sheegayo. insha Allah ta'ala bulshada Soomaaliyeed waxay iga soo caawi kartaa eberle hal furaha 8 88 38 25. waa Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho telefishinka Somali Cable.